walaasheed ka weyn ayay aamintay sidaas ayayna ceelka ku gashay balse walaasheed maxay ku samaysay xarigii ayay u sii daysay aan isla aragno sheekadan aadka u xiisaha badan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة إيو دلان كوريس إيو شيكا عصب آدنا وحيسا بدن فضلا هديتا مركا كوغورس وادنا صوبوقتو وحان هوبا إناد كيلي دوندت شيكو ينكينا إيا لغا غرمرين سبسكرايب دهو أو كسو بير جنالكا غمبالال كان أفرو سياد النغطو قفك أغوري دعوة إسلام مركان سوغلين شيكا سيدو كالاني هدي آدن فيسبوك بيج كينا ولي آدن فلو دين hadda ayaad follow soo dhigi kartaa adigoo raaci kara linkii hoose qaybta commentiga ama Facebook ayaad ku qori kartaa dhalaan koris halkaas ayaadna naga soo raaci kartaa. aanu gudagalno sheekadeena aad ku xiisaha badneed. sheekadana waxay ku saabsan tahay laba gabdhood oo walaalo ah balse kaliya isku aaba aha. gurigan aad u jeedaan waxaa ku nool laba gabdho oo walaalo ah. mid waxaa lagu magacaabaa Scarlett halka mid kale lagu magacaabo Amina. labadooduna waxay ahaayeen isku aabo. Amina oo rajo hore u ahayd ay haddana waxay noqotay agoon kadib markii uu aabaheed geeriyooday. waxayna ku qasbaneed inay la noolaato eedadeed iyo gabadha walaasheed ah oo aabaheed dhalay. Aminan waxay ku qasbanaatay wax walba oo samee la yiraahdo inay samayso. ayada ayaana dusha loo saaray hawsha guriga oo dhan inay qabato. hawsha badan ay qabanaysa awgeed wajigeedii oo dhan waa isbedelay. ayadii oo dhan nolosheedii si kale ay noqotay halka gabadha kale Scarlett ah ay noqotay mid aad u qurux badan ayadoo waqtigeeda dhan ku qaadata shallaysi iyo isqurxin. Amina shaqadii qaban jirtay waxaa ka mid ahaa inay toli jirtay dharka oo ayada kaliya loo daayay. maalin ayadoo toli rabta ayaa waxaa go'ay dhammaan duntii isku xiraysay dharka. kadibna waxay bilowday inay isku xirxirto oo duntii mar labaad isku sii caadiso. meeshiina way ku dahday. gabadhii kale ayaa ka soo kacday ayadoo weysay biyihii ay wajiga ku dhaqan jirtay kaasoo subax walba loo soo diyaarin jiray iyo weliba quraacdii ay cuni lahayd. way qaylisay oo waxay tiri Amina ku aaway quraacdeedii aaway biyahaygii maxaa u soo dahday maanta. markii intaas maqashay waxay ku qasbanaatay inay biyo ula soo xararto. kadibna ceelka ayay aaday si ay biyo uga soo dhaansato. kadibna waxay tiri suga baayo waan kuu keenayaa. ceelkii ayay wadaantii ku daysay biyo ayayna ka soo qaadaysay balse nasiib xumo waxaa ka dhacday duntii ay ku toli lahayd dharka. kadibna waxaa ogaatay eedadii ayadoo ku soo carartay waxayna ku qasabtay ceelka inay gasho ay gudaha u dhacdhacdo si ay dunta uga soo raadiso. eedadii ayaa ku qaylisay oo aad u canaanatay ayadoo ku leh khayrul mas'uulnimada aad samaynaysid waa maxay gabaryahay. duntaas muhiim ayay noogu tahay. haddii aanan duntaan helin dhar ma tolan karno. ee dunta intaad ceelka gashid ka soo bixi oo ka soo raadi. adiga ayaana mas-uulka ah. mas-uuliyadeedana adiga ayaa qaadanaya. kadibna waxay tiri hooyo sidee ayaan ugu heli karaa ceelkan moolka ah welibana aan ku dhiman karo. markaas ay ku tiri sidee ay amarkay ugu soo horjeesan kartaa waa inaad ceelka hadda gashaa. Amina kama aysan soo horjeesan karin eedadeed waxayna ku qasbanaatay ceelka inay gasho. xariga ayay waxay ku tiri walaasheed ka yar ii qabo ceelka ayaan galayaa. sidaas ayayna ceelkii gudaha ugu gashay ayadoo isle walaasha way ku celin kartaa. kadibna tartiib ayay ceelkii ugu sii deganaysay balse maxaa dhacay Scarlett ayaa waxay dareentay daal. kadibna waxay iska sii daysay xarigii oo walaasheed ay ceelkii ku sii daysay. gabadhiina sidaas ayay ceelkii ugu dhexdhacday. Amina way argagaxday welibana waxay tiri maanta ay nolosha kugu dambeyso. way qaylisay ibadbaadiya ayay ku qaylisay. walaasheed ayaa soo kor istaagtay markii aragtay inaysan waxba ka qaban karin ayay waxay go'aansatay inay iska dhigto qof aanba ogeyn. kadibna way ka tagtay ayadoo aanan hal eray ku dhihin. gabadhiin isla markiiba ceelkii ayay quustay balse wayba kasii dhexbaaday ceelkii oo dhul kale oo qaleel ah ayay kusoo dhacday. way yaabtay dhulkan aad ku qurux badan waa maxay ayay istiri. siday u soo socotay ay waxay aragtay god. kadibna godkii ayay gudaha u soo gashay. godka dhexdiisa waxaaba ku yaala kaymo waaweyn oo miro qurux badan leh oo weliba aad u kala duwan. gabadhiina waxay bilowday inay keenta kusii socoto si ay u soo hesho duntii ka soo dhacday ee ceelka uga soo dhacday. markastay sii fogaatoba godka waa uu sii weynaanayaa oo dhul kalo weyn ay arkaysaa ilaa ugu dambeyntii ay aragtay guri yar oo mudul oo kale ah. gurigii ayay aaday welibana islaam waayeel ayaa guriga deganeed. islaantii markii ay aragtay ayay waxay ku tiri ayayo waan ku salaamay. kadibna waxay ku dhahday adiga xagee baad ka timaaday halkaanse maxaad ka soo doontay oo aad raadinaysaa gabaryahay. Amina ayaa ku tiri magacayga waa Amina ayayo waxaa iga soo dhacay dun ceelka ayayna iga soo dhacday. kadibna eedadii ayaa igu qasabtay in ceelka gudaha u soo galo. markii aan soo galayna ceelka ayaanba ka soo dhacay welibana dhulkan ayaan imaaday ee dun ma aragtay dun ayaa iga maqanay. islaantii waayesheed ayaa ku tiri may gabadheedii dun ma aanan arkin halkan in badan ayaan joogay. gabadhii waxay bilowday inay iska oyso welibana waxay leedahay haddii aanan duntaas helin eedaday wax raashin ah ima siinayso welibana suuqa ayay geynaysaa oo sidii dharkoo kale ayay iibinaysaa anigana xoolo ma ihi. kadibna islaantii waayesheed ayaa u soo dhawaatay oo aamusisay oo ku tiri gabadheedii ha oynin istaag.
aniga ayaad ila joogaysaa welibana waad ila noolaanaysaa oo xoogaa yar aad ii shaqaynaysaa intaa kadibna waxaan ku siin doonaa duntaada dun ka fiican. Aamina oo intii way joojisay ayadoo weliba islaanta warkeeda maqashay oo ka ogolaatay inay ayada la noolaato. Aamina habeenkaas waxaa la siiyey raashin aad u macaan oo islaantii waayeesheed ayay la cashaysay welibana raashin aysan horey u arkin. Waxayna bilowday maalintii xigtay inay hawshii loo diray ay qabato weliba ayadoo alasiinimadii ka soo kacday. Waxay weysay islaantii waayeesheed kaliya waxay aragtay rooti ay foornada gelisay halkaasna ay uga tagtay. Gabadhiina hawsheedii ayay usii guda gashay ayadoo hawshii qabanaysa ayaa rootigii foornada ku jiray la hadlay. Markaas ayuu ku yiri icaawi gabar yahay nacaawi waan gubanaynaa haddii kale. Gabadhii way soo fiirisay oo waxay aragtay rootigii hadlaya way la yaabtay balse way kasoo bixisay meeshii rootigii oo dhanne banaanka ayay keentay isagoo weliba aad u carfaya. Caraftiisu way soo jiidatay baahina way haysaa balse Aamina waa gabar akhlaaq fiican. Rootigii ma aysan cunin welibana waxay la sugtay islaantii waayeesheed. Markii soo bagtay nadiifinta guriga gudihiisa banaankiisa ayay bilowday inay nadiifiso ayadoo ka xaaqaysa qashinka. Kadibna waxaa la hadlay miro geedka ku dhaganaa ku dhahay gabar yahay nacaawi oo meesha naga gur haddii kale waan halaabaynaa. Gabadhiina way soo gurtay welibana salad ayay usoo qaadatay halkaas ayayna ku soo rasaysay. Way soo qaaday gudaha ayayna keentay. Gabadha way baahan tahay mirahan aad bay u macaan yihiin balse ma aysan cunin. Waxayna doorbiday inay sugto waayeeshii. Islaantii gurigeed ayaa imaaday wax yar kadib. Gabadhiina waxay u sheegtay inay u xiistay xaafadeedii ayna u baahan tahay inay baxdo. Kadibna islaantii ayaa ku tiri wixii aan kaa ballan qaaday waa kana waxaan ku siinayaa duntan dahabka ah. Mara alaala marada doonta aadna ka tolan kartaa mana kaa dhammaanayso. Waa sida aan horey kaaga ballan qaaday dun fiican inaan ku siin doono. Gabadhiina way soo macsalaamaysay ayadoo u tilmaantay qaabkii ay ku bixi lahayd oo waxay ku tiri mira fiican oo bislaadeen ayaa arkaysaa balse ha kasoo gurin geedka ee dhulka waxyaalo oo keliya ka qaado. Godkii aad kasoo baxdayne iyo waddadii aad soo martay ku laabo adiga ayaa arki doonaa meeshii aad uga noqon lahayd gurigaaga. Gabadhii way soo baxday ayadoo soo raacday tilmaamihii la siiyey. Waddadana waxay u eg tahay wadda ay taqaano oo hadda ayay soo martay. Waxay aragtay miro aad u macaan badan welibana aad u qurux badan balse geedaha kama aysan guranine waxa dhulka ku soo dhacay oo kaliya ay soo qaadatay. Welibana way soo baxday godkii ay banaanka uga soo baxday. Isla markiiba meeshii ceelka ku aadanayd markay imaaday jaranjaro kale ayaa u samaysmeen welibana jaranjartaas ayay raacday ayadoo banaanka uga soo baxday ceelka welibana aad u iftiimaysa dhar aad u qurux badanna wadataa. Mirihii ay soo qaadatay bay istirifiiri waxay isku bedeleen dahab welibana aad qaali u ah. Waxay u timaaday eedadeed iyo gabadhii walaasheed ahayd ayagoo la yaabeen sidii u qurxanaatay gabadhii Aamina ahayd. Ayadiina waxay u sheegtay wax walbo oo meesha ka dhacay ayagiina dhuuninimo ayaa qaaday. Gabadhii Scarlett ahayd ayaa tiri ceelka ayaan galayaa waxaan iska dhigayaa qof miskiin ah ayadoo kusoo tuurtay dun. Kadibna ceelkii soo gashay. Ceelka markii soo gashay oo waxay usii gudubtay dhulkii quruxda badnaa. Kadibna waxay aragtay mirihii aad ku macaanaa ayadoo isle hadhowti markaas u laabanaysid mirahan oo dhan guro. Walaashaa miro yaroo kaliya ay soo qaadatay doqon ayay noqotay balse mirahan haddii aad qaadato adiga aad baa taajir u noqonaysaa. Gabadhii way socotay aad ayay u bubsiinaysaa socodka si ay u gaarto guriga islaanta waayeesha ay degan tahay ayadoo weli waxyaabo badan ku fikiraysa. Ugu dambeyntiina waxay heshay gurigii mudulka ahaa oo ay deganeed islaantii waayeesha ahayd. Kadibna ayadoo is-oysiinaysa ayay u tagtay islaantii waayeesheedna waxay ku tiri soo dhawow gurigayga imaad oo kaale xoogaa yar ii shaqeey waxbana ha ka walwalin dun aniga ayaa ku siinaya. Gabadhiina way faraxday waayaha ayay tiri isla markiina way aqbashay. Gabadhan sida caadadu ahayd waxay mid caajis badan subaxiina aan ciyow ka soo kici karin. Subaxdii meeshii laga sugayay shaqo way iska hurdaysay. Maalin ayadoo hurdaysa ayaa waxay maqashay rootigii ku qaylinaya ee badbaadi waan gubanayaa oo meesha iga bixi foornada iga bixi. Intay ka soo kacday bay hal rooti kala soo baxday rootigii kalena meeshiisa ayay uga soo tagtay. Kii kala soo baxday ayayna cunitaan ay ku bilowday rootigii kalena meeshiisii ayuu ku gubtay. Markii rootiga soo cuntay ay banaanka u soo baxday kadibna waxay aragtay mirihii oo ku dhahaya naga gur meesha haddii kale waan qurmaynaa. Kadibna hal miro kaliya ay kasoo goosatay kaas ayayna cunitaan ay ku bilowday ayadoo kasoo tagtay mirihii kale. Ayadoo aanan joogin isbuuc ayay caajistay. Kadibna islaantii waayeesheed ayay ka codsatay inay u laabato gurigeeda. Islaantii waayeesheedna siday u ballan qaaday waxay siisay duntii dahabkeed oo waxay ku tiri waa tan dunta aan ku ballan qaaday. Gabadhii way ka qaadatay dunta welibana way kasoo dhaqaajisay ayadoo weliba si fiican aan usoo macsalaameynin. Islaantiina madaxa ay ruxday wayna iska baxday. Gabadhana way soo baxday tilmaamihii la soo siiyeyna way soo qaaday oo waddadii si saxan ayay usoo martay gurigeeda ayna rabtaa inay kusoo laabato. Markii soo maraysay mirihii lagu dhahay ha guranin oo kuwa dhulka yaalla oo kaliya qaado ayadiina waxay samaysay intay mirihii kala duwanaa soo guratay oo ay kasoo buuxsatay weel ayay soo qaadatay
ayagoo aad u fara badan. Kadibna waxay kasoo baxday godkii ayadoo ugu dambeyntii timaaday meeshii jaranjarta ay ku samaysmaysay. kadibna ceelkii gurigooda dhexdiisa ahaa ayay kasoo baxday. halkii laga sugayay inay noqoto gabar qurux badan ayaa waxay noqotay mid aad u foolxun, welibana aad u buuran. mirihii ay dahabka ka sugaysana waxay isku bedeleen masas iyo abeysooyin. way iska tuurtay ayadiina dhulka ayay ku dhacday. maalintaa wixii ka dambeeyey xaafadda dadkii la deganaa ceeb daraadiis ayay u hormari weysay, oo markii suuqa soo aadaba way ku qoslayaan wayna caay jireen. waxayna go'aansadeen in xaafadaas oo dhan ay ka guuraan wayna baxeen. aamino oo kale ayaa gurigii kusoo hartay, welibana waxay noqotay gabar taajirad ah oo duntii lasoo siiyey ayay marooyin kala duwan aad u qurux badan ka toli jirtay. welibana ganacsigeedii waa uu ziyaaday ayadoo macaamiil badan yeelatay, sidaasna ku noqotay gabar faa'iido badan samaysa. waxaan filayaa inaad sheekada ka heshay, welibana ay ku cajabisay. haddii ay tahay marka ay kugu horeysay waad soo booqato janaalkeena, ha hilmaamin inaad subscribe dhaato, welibana gambaleelka aad u furato adigoo ka heli kara sheekooyin aad u xiiso badan. sidoo kale soo booqo Facebook pagekeena adigoo raaci kara linkiga hoose qaybta commentiga ama Facebook ku qori kara Dhalaan Koris. mahadsanidin. waxaan soo gaarnay qaybihii dambe su'aalaha. su-aasheena maanta waxay ku leedahay: waxaad sheegtaa wax markay maran yihiin aadan qaadi karin oo culays kugu ah, balse marka ay buuxaan aad qaadi kartid, welibana aad dareemaysid firfircooni.